تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidee ku noqon karaa qof qurux badan markii aad tahay qof muslim ah? waxaad tahay qof qurux badan, waxaad haysataa nolol qurux badan, waxaad tahay qof farxad ku nool. waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo diinta, balse waxaa nasiib xumo ah in aadan aqoon u lahayn, waxayna ku xiran tahay inaad wax baratid. haddaba waxaan kuu soo jeedinayaa qodobo aan isleeyahay noloshu wax ayay ka beddelayaan, waxayna kaa dhigayaan qof qurux badan, bulshadanu qiimayso. ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. horta aan isla fahanno quruxdu ma ahan in aad weji qurux badan leedahay, balse quruxdu waa iimaanka saalixa ah oo uu qofku leeyahay, mana ahan caddaan iyo madow. haddii aad tahay qof aad u madow balse iimaan, waxaad tahay qof ka qurux badan midka caddaanka isku sheegaya ee aan lahayn iimaanka. mar walba waad weyse qaadataa, weysaduna waa nuur. quruxdu rabbi waa qalbiga. qurxi naftaada oo waxaad ku qurxisaa diintaada quruxda badan. haddii aad tahay gabar, markii lagu dhaho isqurxi, ma ahan in lagu dhahay dharka iska dhig, ee waa dharkaada iyo diintaada isku qurxi. waxaad tahay qof sharaf badan oo 7 samo ka kor lagu sharfaayo, waayo waxaa lagu soo dejiyey xijaab. sidaas ayay tahay, maxaa kugu kalifaya in aad quruxda iska qaado? maxay kuu taraysaa dhar uu gaal ugu talagalay in uu sharaf iyo karaamadaba kaa qaado oo bulshada dhexdeeda kuugu ceebeeya sid aad u xirato? haddaba ku dadaal xijaabka oo xiro xijaabka uu Allah subxaanahu watacaala kuugu talagalay. haddii aad tahay wiil, maxaa kuu diiday in aad isku sifayso taagii sifaadka wanaagsanaa? gaalka aad mar walba daawanaysid wuxuu rabaa inuu diintaada kaa leexiyo. qiimay waxbarashadaada, maxaa yeelay waa wax lagu liibaano aakhir iyo adduunyo. bulshada dhexdeeda markii aad joogtid, qiimo ayaad yeelanaysaa. qofka aan wax baranin faqri kama baxo weligiis. waa faqri waayo lacag walba uu haysto wuu ka baahan yahay oo wuu ilaalinayaa. haddii la dhaho maanta saan ayaa jirto, waxba mahaya ayuu ku leeyahay. midka wax bartay waxa uu dareemaa qanacsanaan naftiisa ah. noloshu ma ahan in aad haysato lacag, guryo qurux badan, ama aad ku socoto baabuur cadcad, laakiin noloshu waa in aad ka cabsataa Allah subxaanahu watacaala, adeecdaa awaamirtiisa, kana tagtid wixii uu kaa reebay.